Sebtembar 5 2017 macallimada 31 jirka ee Laura Wallen ayaa ku guuldareysatay inay soo xaadirto shaqadeeda. Qof walba oo shaqaalaha ka tirsan ayaana ka walwalsanaa maadaama aysan horay u dhicin. Kadib markii uu maamulku la xiriiray qoyskeeda, walaac badan ayay ku noqotay markii Laura ay fariin la yaab leh u soo dirtay walaasheed Jennifer maalin ka hor. Taasi waxay ahayd waxaan caadi ahayn sababtoo Laura waxay lahayd uur 4 bil ah. hase haatee raadinta Laura ayaa sii korortay, mana jirin wax raad ah. hase haatee baaritaanka ayaa bilaabmay iyagoo isku dayaya inay helaan tilmaamo u horseedaya booliiska inay daaha ka qaadaan siraha mugdiga leh kuwaasoo furfuri kara sirta ka dambeysa maqnaanshaha Laura. Laakiin sidee loo waayay Laura? maxayse ahaayeen wixii ay ku qortay fariin qoraaleedka? maxay tahay halista ka dhalan karta maqnaanshaha? ma la dilay mise kiiskeena ayaan uga bogan doonaa. maanta waxaan eegaynaa duruufaha argagaxa leh ee ku xiran kiiska Laura iyo dilka loo geystay. haddaba intaan bilaabin muuqaalkeena maanta, hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelino uusan kuu dhaafin. like iyo share-tana nagu dhiirigeli. mahadsan. waxay ahayd maalin Talaada, Sebtembar 5 2017. macallimad wax ka dhigta dugsiga sare ee Waylack High School ee Columbia ee gobolka Maryland, iyadoo rajaynaysa inuu bilowdo sanad dugsiyeedka cusub si gaar ah ayay isha ugu haysay. si kastaba haatee, Laura oo 31 jir ah maysan ku soo laaban iskuulka xilliga fasax xagaaga kadib. macallimiinta iskuulka ayaa sidoo kale ka carooday maqnaanshaha Laura, balse Laura ma ahayn qof sabab la'aan uga maqnaaday iskuulka. sidoo kale waxay diyaarinaysay duruusta fasalka iyadoo zaa'id u sugaysay soo noqoshada ardayda. markii uu maamulka uu waayay Laura, isla markiiba wuxuu la xiriiray waalidiinta si ay u ogaadaan maqnaanshaha gabadhooda. iyaguna aad ayay uga naxeen markii ay maqleen maqnaanshaha gabadhooda. isla markiiba qoyska waxay la xiriireen waaxda booliiska ee degmada Montgomery, iyagoo u sheegay inay ka walaacsan yihiin maqnaanshaha gabadhooda kadib markii ay u soo dirtay walaasheed Jennifer fariin qoraaleed yaab leh. laakiin booliiska wax wara kamaysan helin arrinteeda. sidoo kale waxaa guriga laga waayay gaari noociisu yahay Black Escape 2011 kaasoo Laura ay lahayd. sidoo kale baaritaan degdeg ah oo guriga lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday inaysan jirin calaamado muujinaya in si qasaba looga kaxeeyay maadaama aysan jirin muraayado jabay ama kuwa daaqada ama alaabta. waalidiinta Laura ayaa booliiska u soo jeediyay inay la hadlaan ama waraysi la yeeshaan Tyler Teaser oo 33 jir ah kaasoo xiriir la lahaa Laura 10 sano u dambeeyay, isla markaana ah aabaha cunuga aan weli dhalan ee uurka ay lahayd Laura. Laura Elizabeth Wallen waxay dhalatay 31 July 1986. waalidiinteeda ayaa ahaa Mark iyo Gwen Wallen. waxay ku soo kortay kuna barbaartay gobolka Maryland iyada iyo walaasheed Jennifer. Laura yaraanteedii waxay jecleed inay noqoto qof dadka caawiya, balse waxay u weecatay dhanka waxbarashada iyadoo noqotay macallimad culuumta bulshada. Laura waxaa la waayay 4 Sebtembar 2017 kadib markii aysan soo xaadirin shaqadeeda dugsiga sare. waxay ahayd qof caadiyan si joogto ah u shaqo taga, isla markaana maqnaanshaheedu waxay keentay walaac ballaaran. kadib markii la waayay, waxaa bilaabmay baaritaan ballaaran oo ay sameynayeen booliiska iyo qaraabada. qoyskeeda iyo saaxiibadeed ayaa ku howlanaa raadinta iyadoo laga sii daayay TV-yada iyo baraha bulshada fariimo iyo sawiro lagu cusanayo cid kasta oo wax ka og ama haysa xog inay soo sheegto. baaritaanka waxaa hogaaminayay taliyaha booliiska ee degmada Montgomery, Tom Mangan. asxaabta iyo ardayda iskuulka waxay abaabuleen koox raadin ah oo ka kooban 20 qof, kuwaas oo baadigoob ku sameynayay goobo ku dhow gurigeeda iyo meelo kale oo muhiim ah. sidoo kale ardayda iyo asxaabteeda waxay ku dadaalayeen inay ka qayb qaataan ololaha raadinta iyadoo la adeegsaday idaacadaha iyo xayeysiimada. asxaabta iyo ardayda iskuulka waxay si joogto ah ula joogeen qoyska Laura si ay ugu muujiyaan taageero iyo isku duubni. waxay sidoo kale ka caawiyeen abaabulidda shirarka jaraa'id iyo faafinta warbixinada cusub ee warbaahinta. sidoo kale aabaha Laura ayaa warbaahinta la hadlay isagoo ka codsanaya cid kasta oo macluumaad ka haysa gabadhiisa si ay ula wadaagto. booliiska ayaa wicitaan ka helay shaqaalaha dhismaha Green Gate. isla markiiba booliiska ayaa tegay halkaas iyagoo helay gaariga Laura oo yaala baakinka dhismaha gurigaas, balse booliiska ayaa isweydiiyey sababta loo dhigay gaariga wadada Rolling Meadow Way, taasoo ay kaaga dhowdahay isla wadada Waylack ee uu ku yaalay iskuulkeeda. booliiska ayaana baaritaan dheeraad ah ku sameeyay gaariga si ay wax u helaan. kooxaha baaritaanka ayaana u qaybsamay 2 group.
koox ayaa diiradda saartay dib u soo celinta raadadka digitalka ee Laura, halka kooxda kalena ay wareysanayeen saaxiibada iyo qoyska Laura. sidoo kale kombiyuutarada iyo telefoonada ayaa baaritaan lagu sameeyey si loo helo wax raad ah. Saatee Laura walaasheed ayaa bixisay macluumaad. Waxay sheegtay in habeenkii u dambeysay ee Laura la weynayay ay dhammaan qoysku u baxeen fasaxa maalinka shaqaalaha, balse Laura waxay qorsheynaysay in ay waqti la qaadato saaxiibkeed Tyler. taas waxaa xaqiijisay Laura walaasheed Jennifer, iyadoo u sheegtay booliiska inay xaqiiqsan tahay maqnaanshaheeda inuu qorsheeyay Tyler. Jennifer ayaa su'aalo dheeraad ah laga weydiiyey, iyadoo siisay booliiska fariin qoraaleedkii ay wadaageen walaasheed in Tyler iyo walaasheed ay waqti ku qaadanayeen baadiyaha magaalada Sebtembar 2017. waxaa kale oo ay intaas ku dartay in Tyler walaasheed uu muujiyay rabitaan ah inuu guursanayo kadib markii uu ogaaday inay uur leedahay. si kastaba haatee, Jennifer ayaa tilmaamtay in ay wax isbedeleen subaxnimadii Isniinta Sebtembar 4, 2017 kadib markii ay u soo dirtay fariin qoraaleed aan caadi ahayn. waxay u sheegtay Jennifer in ilmaha uusan lahayn Tyler balse uu leeyahay Anthony. Jennifer ayaa sidoo kale u sheegtay saraakiisha booliiska in Anthony uu ahaa saaxiibkii hore ee Laura, mana aysan arag in ka badan 2 sano. sidoo kale booliiska ayaa arkay qoraalka ay Laura u soo dirtay Jennifer, hase ahaatee magaca Anthony si qaldan ayuu u qornaa, balse wixii intaa ka dambeeyay wicitaan kasta oo Jennifer walaasheed wacdo wax jawaab amaysan helin. qoyska ayaa ku adkaystay in wax uu ka ogyahay Tyler maqnaashaha gabadhooda, una baahan yihiin in baaritaan lagu sameeyo maadaama uu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee arka Laura. booliiska ayaana wareysi la yeeshay Tyler, isagoo u sheegay in Laura maalinkaas ay isu raaceen in bangiga lacag ay uga soo bixiso si uu diyaariyo guri cusub oo ilmahooda ay u dhistaan. kadib ay si wadajir u aadeen baadiyaha, inkastoo ay waqti macaan soo wada qaateen. haddana wuxuu sheegay inaysan faraxsanayn balse uusan ka warhayn waxa ka murjiyay. ugu dambeyn wuxuu sheegay inay ku soo laabteen magaalada iyagoo ku ballamay inay subaxdii ka wada quraacdaan moolka. khilaafna uu soo kala dhex galay, kaasoo ahaa inaan gaariga aniga wato oo subaxdii soo doono iyo inay iyada wadato, balse uusan ku lug lahayn maqnaanshaha Laura. Tyler Tezier, oo ahaa saaxiibka iyo shakhsiga ugu dhow ee looga shakisan yahay dilka Laura Elizabeth Wallen, wuxuu sameeyey dhowr wareysi intii baaritaanku socday. wareysiyada hore Tyler wuxuu muujiyay walbahaarka iyo murugada ku saabsan maqnaanshaha Laura. wuxuu ka qayb galay shirar jaraa'id oo uu ku weheliyay qoyskeeda, isagoo ka codsaday cid kasta oo wax xooga ka haysa inay soo sheegto. wuxuu muujiyay inuu doonayay in Laura ay si nabadgelyo ku soo noqoto. Tyler wuxuu isku dayay inuu muujiyo inuu yahay qof taageero u ah qoyska Laura. wuxuu sameeyay khudbado murugo leh oo uu ku muujiyay murugada uu ka qabo maqnaanshaheeda, isagoo rajo ka muujiyay inay dib u soo laaban doonto. wareysiyada uu siiyay booliiska, Tyler wuxuu bixiyay sheeko isku xiran oo ku saabsan maalintii ugu dambeysay ee uu arkay Laura. wuxuu sheegay inay wada qaateen waqti wanaagsan oo aysan jirin wax muran ama dhibaato oo dhex maray. intii baaritaanku socday, Tyler wuxuu sameeyay isku daya badan uu ku fududeynayo baaritaanka. si kastaba haatee, booliiska ayaa ogaaday in qaar ka mid ah macluumaadka uu bixiyay ay yihiin kuwo aan sax ahayn ama been abuur ah. Tyler wuxuu sameeyay dhowr wareysi oo uu siiyay warbaahinta, isagoo ku celceliyay sheekadii uu sheegay booliiska. wuxuu isku dayay inuu dadka ku qanciyo inuu yahay qof aan waxba galabsan oo ka walwalsan maqnaanshaha Laura intii uu wareysiga siinayay warbaahinta. Tyler wuxuu ka faa'iidaystay fursado badan si uu soo jiito dareenka bulshada, isagoo ka codsaday inay ka caawiyaan helitaanka Laura. booliiska waxay bilaabeen isbarbardhig ay ku sameynayaan sheekooyinka Tyler iyo cadeymaha kale ee ay heleen. waxay ogaadeen inay jiraan farqi iyo kala duwanaansho ku saabsan sheekooyinkiisa. tusaale ahaan, raadinta telefoonka Laura iyo wicitaanka ay samaysay ayaa muujiyay inay jiraan waxyaabo aan iswaafaqsanayn ee ku saabsan sheekada Tyler. Tyler Tezier waxaa lagu casuumay inuu yimaado xarunta booliiska si uu uga hadlo maqnaanshaha Laura, isagoo ka jawaabaya su'aalaha booliiska. Tyler wuxuu bixiyay macluumaad isburinaya oo aan iswaafaqsanayn. wuxuu sheegay inuu arkay Laura maalinkii ugu dambeysay. si kastaba haatee, booliiska waxay ogaadeen in macluumaadka uu bixiyay uu yahay mid aan sax ahayn markii loo fiiriyay raadinta telefoonka iyo xogaha kale. waxaa jiray wicitaano iyo fariimo uu Tyler u diray qoyskeeda iyo saaxiibadeed, isagoo ka dhigaya in Laura ay tahay qof nool, taas oo booliiska ku dhalisay shaki weyn. booliiska waxay si qoto dheer la u baareen telefoonka Laura iyo Tyler. waxay isticmaaleen raadinta telefoonka si ay u ogaadaan goobihii u dambeeyay ee ay ku sugnaayeen telefoonadooda. waxaa la ogaaday in telefoonka Laura uu ka ekaa goob ka baxsan magaalada.
sidoo kale booliiska waxay ogaadeen in Tyler uu isticmaalay telefoonka Laura si uu u diro fariimo been abuura oo uu muujiyay in Laura weli nooshahay. booliiska waxay wareysteen saaxiibada iyo qaraabada Laura kuwaas oo bixiyay macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xiriirka Tyler iyo Laura, waxaana soo baxday in xiriirkoodu uu ahaa mid muran badan leh oo ay jireen dhibaatooyin. waxaa jiray goobjoogayaal arkay Tyler oo ku sugan goobaha muhiimka maalintii maqnaanshaha Laura, taas oo aan waafaqsanayn sheekadiisii hore. booliiska waxay baaritaan ku sameeyeen guriga Tyler iyo gaarigiisa, halkaas oo ay ka heleen cadeymo muujinaya in Tyler uu ku lug lahaa dilka. waxaa ka mid ahaa waxyaabo raad ah oo muujinaya in si ula kaca uu dilay Laura. booliiska waxay heleen raad uu ka tagay Tyler oo muujinaya inuu goobtaas tagay. ugu dambeyn waxaa la helay meydka Laura Elizabeth Wallen, taas oo laga helay duurka baadiyaha gobolka Maryland iyadoo la dilay weliba god lagu riday. ugu dambeyn cadaadiska iyo cadeymaha faraha badan ee la soo bandhigay waxay sababeen in Tyler uu qirto dambiga. wuxuu sheegay inuu dilka Laura u geystay kadib muran ka dhashay xiriirkooda. isku dayga uu sameeyay Tyler si uu u qariyo dambiga oo ay ku jiraan telefoonada been abuurka iyo macluumaadka qaldan waxay sii xoojiyeen kiiska booliiska. kadib markii cadeymaha iyo wareysiyada booliiska ay muujiyeen in Tyler Tessier uu ku lug lahaa dilka Laura Wallen, xabsiga ayaa loo taxaabay. Tyler Tessier waxaa la soo saaray maxkamad waxaana lagu soo oogay dil ka baxsan naxariista kadib markii la ogaaday inuu si ula kac u dilay Laura kadib muran ka dhashay xiriirkooda. haddaba wareysiga booliiska iyo baaritaanka qotada dheer waxay sababeen in Tyler Tessier lagu helo dilka Laura Elizabeth Wallen iyo isku dayga uu sameeyay si uu u qariyo dambiga iyo macluumaadka isburinaya ee uu bixiyay waxay ahaayeen kuwa muhiim ah oo booliiska ka caawiyay inay ogaadeen xaqiiqada dhabta. ugu dambeyn maxkamadda ayaa soo bandhigtay cadeymaha raadinta telefoonada, markhaatiyaasha iyo qirashadiisa dambiga. waxay horseedeen in Tyler lagu helo inuu galay dil darajada koowaad iyo qarinta dambiga, waxaana lagu xukumay dil toogasho. daawada sida u aragtaa kiiskan ninkan dilay xaaskiisa oo uur 4 bilood leh? nagula wadaag qaybta hoose wixii fikirkaaga ah. mahadsanid.